معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. آت الكف يا مسلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله تعالى وحين كلمة أين أجيدين كصابصا دورك مدح dhaqameedyada bulshada Soomaaliyeed iyo hagaajinta bulshada kelmad ku saabsan baynu insha Allah taala aynu umada maqashin doonaa. Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay ayuha naasu inna khalaqnaakum min dhakari wa untha waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila lita'aarafu inna akramakum 'inda Allahi atqaakum. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay aayadaas in laga abuuray dadkii bani aadamka ahaa dhadigii labiya dhadig oo ah aadam iyo xawaa. dabeetana ilaahay uu ka yeelay ummadii qabaa'il iyo shacbiye ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ka yeelay. xikmaduna ay tahay litacaarafu ina isku aqoonsataan isku garataan. waxa weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala si loo helo xuquuqda dadka bani aadamka dhexdooda taala ee muslimiinta waliba ah. waxa weeyaan oo loo gartay dhaxal kale oo loo gartay qofkan qaraabadiisa ah oo xuquuq ku leh oo la garto yaa maxaan ku leeyahay u banaan inuu guursado yaanu banaan inuu guursado. arrimahaas oo dhan oo xuquuq ah ayaa ka soo baxaysa isgarashada qofka la doonayo in la garto oo nasabkiisa la garto. oo rasuulku wuxuu salawaatullaahi wasalaamu calayhi ta'allamu min ansaabikum ma tasiluna bihi arhamakum. yani abtirsiimadiina waxa ka barataan waxa ku xiriirsan rixmkiina. xikmadaas baa markaa looga jeeda oo bulshadu markaa inay tacaawunto. barashadii waxay keenaysaa in la tacaawuno, in khayrka la isu kaalmaysto ayay keenaysaa. markaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu xadeeyay marka laga hadlayo miqyaaska tafaadulka ama halbeega kala sareynta ama kala qiyaabanaanta. ilaahay wuxuu ku tilmaamay inna akramakum 'inda Allahi atqaakum. waxa idinku sharaf badan oo idinku wanaagsan ilaahay agtii qofka taqiga ah. taa macnaheedu waxa weeyaan inaan qabiil ka fiicnayn, qabiil tira badan qabiilka tirada aan ka fiicnayn, inaanay maxaan ku dhahdaa qolada maalka badan qolada maalka yar ka fiicnayn, degaan aan lagu kala fiicnayn, midab inaan lagu kala fiicnayn. ee ilaahay agtiisa waxa lagu kala fiican yahay ay tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsashadiisa. inta hadii ka soo gudubno waxaan oran karaa marka qabiilku waa meesha barbilowga meelaha midnimadu ay ka bilaabanayso oo haanigun bay ka tolantaa. dadku waxay ka bilaabanayaan qoys aabba iyo hooyo ayay ka bilaabanaysaa oo qoys ah. qoysaska ay isu tagayna hal abtirsimo leh iyo qabiil noqonaya. qabaa'ilkaas isu tagayna waxay noqonayaan shacab. shacabkaasna dawladdii uu noqonaya marka hoos galaysa. marka waxa weeyaan waxaan oran karnaa waa midnimo. qabiilku waxa weeyaan meelaha ay ka bilowdaan midnimada bulshada ka bilaabato weeye. waxaynu leenahay dadka madax dhaqameedka ah ee qabaa'ilka marka madaxda u ah ama uqaadhe ama ismidha ama garaadadhe ama salaadiindhe magaca doonta u bixi. dadkaas xil weyn baa saaran. dadkaas waa madaxda iyagu aan xilka ka dhicin oo ilaa intay nool yihiin xilku uu saaran yahay. waxa ka kaxeeyana ay noqoto marka uu dhinto alaaba si ay u badan tahay. xilkaasna waa xil soo jireena oo shariicada islaamku rasuulku salawaatullaahi wasalaam dad curafa la yiraahdo oo qabaa'ilka madax u ah oo horjoogayaal heeraha u ah xilligii rasuulka waa jireen. imaam al-Bukhari wuxuu baabaysanayaa baabu al-urafaa lin-naas.
يعني مركا عرفاء لي هذا حديث كي أبو داود ورني وحليه إن العرافة حق ولا بد للناس من عرفاء يعني مرحلة رقمية كوا شيء سجن dadkuna laga maarmi maayo inay yeeshaan dad madax u ah oo beeraha iyo ummadaha hogaamiya xil weyn baa saaran oo la doonaya inay ka soo baxaan dadka madaxda ah ee beeraha madaxda u ah waxa ka ah horta qofka xilka saaran waa inuu dareemaa isaguna fahansa uu toosnaada rabbigana uu ku xidhnaada qof ilaahay ku xidhan oo adoon ilaahay u ah inuu dareemo oo mas'uuliyadaas qiyaamaha la weydiinayo halkaas wax ka bilaabanayaan qodobka labaad waxa laga doonayaa waxa la yiraahdo midaynta beesha oo madax ka yahay ninkii odaygii reer qabiil madax u ah inuu ka shaqeeyo heshiisiinta isu keenidooda ururintooda midayntooda qabiilka oo madaxda ka yahay waayo hagaajinta reerka hagaajiyo bulshadii ka shaqeeyay in dadkii markaa uu ka shaqeeyo midayntooda wasulxu khayr heshiisiintu waa shay khayr badan waa qodobka la doonaya in la yimaadaan waxa ka mid ah qodobada muhiimka ah inuu ilaaliyo waxa la yiraahdo ballamada iyo cuhuuda hadiya gooraale qabaylku isku dhacaan waxba kala gaadha ballama la galaa si dadkii wax gaadheen loo dhaahiyo oo hawlahooda loo dhameeyo oo loo kala baxo ballama la qabsadaa ballamadaas diintay ka mid yihiin waxa muhiim ah marka madax dhaqameedyadu inay ilaaliyaan cuhuuda ama dhexooda haato ama beelaha kala la gaanaata ama cid kasta kula jiraanba لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له إيمان ماله قفك أنا أمانة لهين دين ماله قفك أن بلن لهين مركا بلن كاس إلى لنتيسو إستقع يا وحي السارة للدونية هرقلين تيدي كشقين تيدا إنو قبصده وحمهما ولقى الدونية إنو إلاليو وحلي لهذا عدلقة وننكم مركو رير مدحكية هي مسؤوليadaasi bari qiyaamaha lagu su'aalaya cadaalad baa laga doonaya inaad wixii aad lagu dhiibay ama wixii dhexdooda yimaada inaad cadaalad kula dhaqantid oo ku hagtid baa la doonaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam alayhi isagoo amaanaya dadka cadaaladda la yimaaninta qiyaamaha maxay noqon doonaan innal muqsitina 'inda allahi ala manabira min nur kuwa cadaalada sameeya maalinta qiyaame manabir dhaadheer oo nuur ay korkeeda fusheen baa rasuulku sallallahu alayhi wasallam alayhi marka waxa weeyaan wuxuu yiri ninkiina rag cadaalad waay sida cawsha kala yaaciya cadaalad baa dadka deeqda cadaalad baa ummadda midaysa cadaalad baa ummadda isu keenta taas waxa marka qodobka muhiimka ah ee la doonayay inay la yimaadaan oo ku dhaqmaan waxyaabo aad muhiimka waxa kamid ah waxyaabaha wanaagsan ee dhaqanka Soomaaliyeed ee bulshada Soomaaliyeed ku sugan inuu ilaaliyo oo dhaqanka wanaagsan wuxuu u baahan yahay in la sugo oo la xoojiyo ayuu u baahan yahay dhaqanka wanaagsan uu farabaday bulshada Soomaaliyeed waxa kamid ah tacaawunka ay iskaalmaysanayaan oo hadiya gooreerku waa la isu kaalmeeyay waxa kamid ah midalan guurka oo kale marka uu qofkii gabadh guursado oo kale waxa sameeyay waxa la yiraahdo kaala siintu waa shay wanaagsan oo ninkii la xooleynayo waxa kamid ah dhaqanka wanaagsan martisoorka marka loo soo hoydo in maaragtay waxa la isu loogo waxa la isu qalo waxa kamida maganta ayaa kamida waxa kamida hadii hadiya goor dagaal dhacaan oo qabaylka waxa dhex maraan oo heshiiyaan hadhowto gabdho godob reeb la yiraahdo ayaa la isasiiyaa oo Soomaalidu waxay tahay meeshii dhiig ku daata xabba lagu daadiyaa oo xiriir fiican iyo dhaqan wanaagsan baa reer ka dhaanay waxa la ilowsiinaya dhiigii wixii daatay waxa imanaya waxa dhaqanka wanaagsan kamid markay soo guurtadu in la soo dhaweeyo iyagoo colaadi ka dhaxayso haddana marka daaq ay isugu yimaadaan ee qolo roob helo qoriyaha kale marka si la furan iyo qiyaam badan wixii ka dhanba ilaawaan xaaladda way qiimeeyaan wax aad u fiican weeyaan waxa kamid ah dhaqanka si baabay ah marka hore wanaagsanaa waxa la yiraahdo birimigeydada oo hadii dagaal dhaco inaan dumarka la dilin oo caruurta la dilin oo odayaasha la dilin oo dadka madaxda la dilin dhaqankii fiicnaa ee Soomaalida ahayd waxyaabo marka wanaagsan oo laga rabaa wixii wanaagsan oo dhaqanka fiican oo dhan inuu xoojiyo ayaa laga doonaya waxyaabaha la doonaya mas'uuliyadda saaran waxa kamid ah inuu waxyaabaha dhaqanka aan fiicnayn inuu reerka kala dagaalamo ka dhex saaro xeerarka khilaafsan shariicada islaamka iyo kowka inuu ka dhex saaro dhaqanka aan fiicnayn inuu ka dhex saaro ay kamid tahay beelaha qaarkood ilaa hadda magaha si sharciga ma waafaqsana oo qofkii la dilay marka magta laga soo qaato
magti waa la qaybsadaa magdheer iyo jifi baa loo bixiyey magdheerna tulweyna iska leh jifidana agoontii dadka laga dhintay baa xoogaa yar loo xareeya arrintaasna waa arrin aad iyo aad u qaldan waana arrimaha bulshada Soomaaliyeed baabi'inaya oo waxaad moodaa in heshiis loo noqday in agoontii yaryareen xoolaheeda la cuno إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وعيد كاسا كسو أروري خطر وين بالوجرة إن مكان طالع غير ذو مهم لكن كحوا كم يدقفكي بيرك وحدي هرجع أنت قف سكدلو طبعا الله مرسنا يلي سكسي ديني أمل دوفيني بعد لطونه وارن طلعنا كحن إما هذا غميدي اللي دون إسكال ساران ولوه الشيء الشرع الإسلامك قفك وكسك وحدي لي إن عدي حق أولاد قعنت لو قريو ويجوا يدوروا ليه يعرفين كران ويدوروا ليه المكان يقادن كران ويدوروا ليه قصاصا كران ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل أي الله سبحانه وتعالى مكا حل كان وحسارية يبين لنا هاي ما هذا غماديادو إن إسكال السارار والدلال وين لقوا بحيو سعر ما نوع صلاة صف جرها وارما مهم كان وحياباتك قاركود كوض رقمان قبائلك qaar baa wali dumaashi wixii oran jiray ay meel adag ka taagantay oo qofkii dumareeda laga dhintay dhaxal baa laga dhigtay oo inayna xorriyad lahayn oo ninkii sharciyadu diidi meesha hadii laga dhintay ninka waalkeeda ninka dhintay caruurtan dhalay adeerkood inuu guursado oo gabadhan de marka dadka qaraabadeeda qaraabada caruurta aha wax dhibaato ma sharcigu diiday soo goliyiin laakiin meesha waxa taala in laga dhigo xeer iyo sharci oo nin kale baan hawaysan karin oo cid kale aan la hadli karin oo xeer iyo xoolo kala qaadanayo oo dhaqanku meelaha qaarkood aad u adag yahay arrintaas inuu ka digayna waa dhaqamada xun ee la doonayo in la soo afjaro oo la baabi'iyo waa arrimaha la doonayo waxa kamid ah wax li'aanada reer hebel baa waxay naga maqayin in cid laga soo dilo waa dhaqanka aad foosh xun ee ummadeena fasaadiye baabiyay waa umaraha u baahan marka tashxuuq laga yeesho oo dadku joojiyaan in reer hebel qof aan dambi gelin oo waxba dilin dilka la dilay aanada in laga haro waxaynu aad iyo aad ugu boorinaynaa dadka madaxda dhaqameedyada dhaqanka ee qabyaalada leh ee tolaayayda leh ee maaysufaanka leh ee foosha xun dhaqamada noocaas oo aynu ka gudubno oo sidii nabi maxamed daweeyay baa diinta daweyn karta oo xil iska saaro si dadka tacliinta loo bari lahaa oo qabaa'ilku diinta barashadeeda macaahidda madaarista tacliimiga ilaa heer jaamacadeed ummadda tacliinta lagu booriyo si ay ummaddu u soo baxdo oo uga guurto dhaqanka maxaan ku dhahay jaahiliga xun oo dadku ay aqoon marka yeeshaan waxaa laga yaabaa inay wax badan dhaafaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa waxa khayr kale isu sheega dhageystana kuna camal fala subxaanaka allahumma wa bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk